Faa'iidooyinka toonta iyo xanuunada lagu daaweeyo. Fadlan haddaad barteen caafimaadka aad ku cusub tahay YouTube-keena, subscribe saar si aan share gareeyo muuqaalkan. Toonta inta ugu badan waxaa loo isticmaalaa in lagu udgooneeyo dhadhanna loogu yeelo cuntooyin aad u fara badan. Dhinaca kale, toonta waxay leedahay faa'iidooyin caafimaad oo cajiib ah. Toontu waxay inta ugu badan ka kooban tahay maaddo loo yaqaan allicin, taasoo la dagaallanta bakteeriyada, fayraska, iyo sidoo kale waxay leedahay sun-saaris jireed. Toonta waxay kaloo ka mid tahay geed-daaweedyada ay cilmi-baarayaashu isku waafaqeen waxtarkeeda caafimaad. Muuqaalkan waxaan kugu soo gudbin doonaa ama aan kugu sheegi doonaa ilaa 8 faa'iido toontu leedahay xagga caafimaadka marka loo eego. 1. Waxay horumarisaa caafimaadka wadnaha. Toontu waxay si aad ah ugu fiican tahay caafimaadka wadnaha. Waxay caawisaa ama caawinaad ka geysataa inay horumariso wareegga dhiigga. Waxay hoos u dhigtaa kolestaroolka, waxayna ka hortagtaa cudurrada wadnaha ku dhaca. Sidoo kale, waxay ka hortagtaa in halbowlayaasha wadnaha ee dhiigga ayba cidhiidhi ay noqonin ee waasic noqdaan, taasoo hadday ciriiri noqdaan uu sababo waxa loo yaqaan wadne istaag ama heart attack. 2. Waxay koontarooshaa dhiig-karka. Cilmi-baaris ayaa waxay caddaysay in toonta ay hoos u dhigto dhiig-karka. Dadka dhiig-karka qaba waa inay maalin walba cunaan jab yar oo toon ah oo cayriin ah, iyagoo calooshoodu maran tahay. 3. Waxay sare u qaadaa difaaca jirka. Toonta waxaa aad ugu badan fitamiinada ay ka mid yihiin fitamiin C, B6, iyo macdanta selenium iyo magnesium, kuwaasoo si aad ah sare ugu qaada difaaca jirka. 4. Waxay daaweysaa qufaca iyo durayga waxa loo yaqaano. Toonta waxay si weyn u daaweysaa qufaca iyo durayga, sidoo kalena waxay sidoo kale faa'iido weyn u leedahay daaweynta xiiqda ama asmada iyo burukiitada. 5. Waxay la dagaallantaa allergy-kada. Toonta waxaa ku jira maaddooyin la dagaallama fayraska iyo inflammation-ka, kuwaasoo jirka ka caawiya inuu la dagaallamo noocyada kala duwan ee allergy-kada ama xasaasiyadda. Sambabada. Dadka taariikh ahaan qoysaskooda uu kansarku ku lug leeyahay waxaa lagula taliyaa inay si joogto ah u cunaan toonta si ay hoos u dhigaan khatarta ugu jiraan noocyo badan oo kansarka ah. Allah inaga haye dhammaanteen. Fadlan muuqaalkan sii share garee. Mahadsanidin.